nabigeenu calayhi salaatu wasalaam majlis uu fadhiyey buu yidhi man takafala lii an laa yas'ala annaasa shay'an wa atakafalu lahu biljanna ayaa aniga ii ballan qaaday buu nebigu yidhi inuu dadka uu waxba weyddiisan oon aniguna janno u ballan qaadaa. saxaabi la odhan jiray thawbaan ayaa yidhi aniga ayaa ballankaa qaadaya buu yidhi. saxaabigaasi markaa da'diisi way weynaatay, isagoo faraskiisa saaran buu suuqa soo maraya, suuqa oo markaa musdaxama oo cidhiidhiya. jeedalka uu faraskiisa uu u adeegsanayo ayaa ka dhacayay, rubbamaa laga yaabaa marar badan dadka dariiqa marayay ee suuqa marayay inuu garabkooda uu ku dhaco. ma odhanayn isoo siiya, intuu faraska ka daadego ayuu gacantiisa ku soo qaadanayay. markaa raggii yaqaannay baa ku odhan jiray thawbaanow, nin waxaa tahay nebi maxamed asxaabtiisiiya oo diintan ilaahay u soo halgamo u soo dadaalay, waana da'weyn tahayee faraskaaga maad adoo kor saaranna tidhaadino ii dhiib jeedalka, waa kuu dhiibi lahayne. markaa buu yidhi may nebi maxamed baan ballan la galay buu yidhi, ballankii nebi maxamed aan la galay baan buuxinayaa buu yidhi. jariir binu cabdillaahi albajali radia allaahu canhu nebigeennu u yimid calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nebigeenna markii loo keenu islaamayey 3 khasladood buu markaa nebigu kula ballamay ninkaas: inuu salaadda oogo, sakadana uu bixiyo, qof kasta oo muslimana uu khayr miiro. anigu xadiidka marka aan sharxayo ama aan sheegaayo af soomaali baan ku sheegay, iniguna maqalkiinnu waad af soomaali baad ku fahmaysaan. nin walba luqaduu yaqaannuu xadiiska nebiga ku macneeyaa, walaakiin asxaabu muxamed waxay ciziga iyo sharafta iyo guusha ay ku heleen diinta kumay macnaynayn hadal iyaku, waxay diinta ku macnaynayeen camal fal, dhaqan bay u beddelayeen. jariir binu cabdillaahi albajali radia allaahu canhu magaalada madiina suuqeeduu soo galay, isagoo markaa isla faras soo godoo soo iibso. nin markaa wuxuu arkay farda iibinaya, way heshiiyeen, waxay ku heshiiyeen 200 oo dirham. lacagtii buu soo saaray, uu siiyey. faraskii markuu qaatuu in dowra uu la socday ayuu soo noqdo wuxuu yidhi war faraskan 200 uu ka qiimo badan yahay, ee yarka waad soo dhacday. uu ku soo noqdo wuxuu yidhi adeer faraska imisaad iga siisa? markaasuu yidhi 200. ma qiimihiisii dhabta ahaaba? haa, waa qiimihiisii dhabta ahaayoo aniga iibinaya. markaasuu yidhi adeer farasku 200 waa ka qiimo badan yahee 400 baan u malaynaya, 200 ku darsa buu yidhi.